xigmada dhaymanka iyo luulka dhalaal badan oo ka qaalsan ayaan kuu dhigahayaaye adoo dhaqanka iyo aqoonta ku dhiiranaya oo jeclaysan si feejigan ii dhegayso xasuusnow mar waliba in ilaahay subxaanahu wa tacaala yahay rabbiga adiguna tahay addoonkiisa aadna madax yacnii khaliif ka tahay dhulkiisa taas ayaana kuugu filan si aad u dareento awooddaada marnaba ha isku dhiibin quusasho hana u oggolaan kuwa kale inay kugu qanciyaan inaad tahay daciif aan awood u lahayn samaynta shayba farxadda dhabta ah ma ahan inaadan ooyin ama aadan murugoon ee waa inaad raalli ku tahay wax walba ay maalmuhu kuu qarinayaan kuna mahadnaqdaa allaah adigoo dhoola caddaynaya qofka caaqilka ah hadduu qaldamo qaladkiisa wuu qirtaa laakiin qofka dabbaalka ah qaladkiisa wuu duugaa oo wuu inkiraa maalka iyo lacagta waxay kugu xirtaa saaxiibbadan eestayaal ah quruxduna waxay kugu xirtaa dadka hawadooda raaco laakiin akhlaaqda wanaagsan waxay kugu xirtaa saaxiibba daacada haddaad rabto inaad fashilanto isku day dadkoo dhan inaad raaligeliso ogowna dadkoo dhan ma raaligelin kartid warqado ku qor wax walba ay dadku ku odhanayaan oo niyadjab ah kadibna dhig lugahaada hoostooda mar walba ay warqadahaasi bataan kor ayay kuu qaadayaan oo hadafkaagay ku gaarsiinayaan goortii aad weydo shay aad jeclayd xasuuso in geedkuba waaye caleemihiisa jiilaalka si uu u kasbado kuwo kale oo ka qurxoon kuwii hore wakhti roobeedka noloshuna ma ahan ilaa marxaladooyin isdaba jooga marxalad kastana waxay wadataa macaan iyo qaraar ee noqo mid samir badan jacaylka aragtida koowaad ka dhasha badanaa wuxuu ku dhammaadaa furiin sahlan dib ha u fiirin waxaad soo dhaaftay oo murugo ah waad murugoon haddaad ku mashquulsho wixii hore ee murugo ahaa wakhtigaagana ku dhammaysan ka fikirka mustaqbalkaaga keliya alla tala saaro oo dadaal waad guulaysan doontaa inshaa allah marnaba qof ha u dhibin si aad farxad u gelisa nafsadaada hana dulmin shakhsi si aad u bariyeesho gafafkaada isku day mar weliba inaad ka dhisato farxaddaada meel ka fog xanuunnada dadka kale iska jir sinada waayo waxay leedahay 4 arrimood oo halis ah iftiinka wejiga ayay qaadaa risqiga way goysaa ilaahayna wuu ku caroodaa naartana waa lagu galaa ha ka daalin towbada marnaba xitaa haddii uu soo noqnoqdo dembiga miyaadan ahayn mid markay ka wasaqoobaan dharkiisa dhaqda sidaasi oo kale mar allaala markaa dembiyowda dembidhaaf ka dalba rabbiga waxay weydiiyeen yaa qurux badan dayaxa iyo hooyada waxaan ugu jawaabay goortii aan eego hooyo waan ilaabaa dayaxa goortii aan dayaxa eegana waxaan soo xasuustaa hooyaday maalintu way gaaban tahay noloshuna way socotaa dembiyadana way sii kordhayaan naartana waxay leedahay ma jiraa wax dheeraad ah allah subxaanahu wa tacaalaana wuxuu leeyahay ma jiraa ruux baryootamaya ee aan ka ajiiba ducadiisa haddaba haddaad doonayso guusha labada daarood afkaaga yuusan ka daalin baryada alleh وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي